hobeya markaad dhalateed dhawaaqday. ciidamada maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa maanta madaafiic khasaare geysatay waxa isku weydaarsadeen deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool. wararkan helayna ayaa waxa ay sheegayaan in barqanimadii saakayto ciidamada labada dhinac ay isku rasaasayeen deegaanka Tukarraq gaar ahaan aagaga ay kaga jiraan halkaas. wararkan helayna waxa ay sheegayaan in israsaaseen ay dhaxmartay labada ciidan kadibna ay jirtay madaafiic ay isku tuureen. dad deegaanka ah oo aanu la hadalnay diidana in magacooda iyo codkooda loo adeegsado warbaahinta waxa ay sheegeen in dhowr madfac ay isku adeegsadeen dhinacyadu ay isku tuureen isla markaana uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac hase ahaatee aanay xaqiijin karin. deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool ayaa bilihii la soo dhaafay waxa uu ahaa deegaan ay colaadin ragaadisay kadib markii maamulada Somaliland iyo Puntland ay midba kale uu sheeganayo lahaanshiyaha deegaankaas ama in isagu uu hoos tagto maamul ahaan. deegaankaas wararka ugu dambeeyay hadda aanu ka helayno waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay degan tahay hase ahaatee madaafiicdii maanta ay isku weydaarsadeen labada dhinac ay sababtay in ay dadka qaar ay sameeyaan barakac. deegaanka xaaladiisu waxa ay ahayd bilihii la soo dhaafay mid aan sal fadhiyo aan lahayn iyada oo dawladda federaalka maamul goboleedyada beesha caalamkuna ay ka digeen dagaaladaas. Somaliland iyo Puntland waxa dhinaca kale uu sheegay in maamul ahaan deegaankaas uu hoos yimaado oo aanay ka tanaasuleen.